kulanti wanaagsan idilkiinba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono madaxweynihii ugu horeeyay ismaamulka Soomaalida Ogaadeniya Cabdullaahi Maxamed Sacdi. Cabdullaahi Maxamed Sacdi wuxuu ku dhashay gobolka Nogob ee ismaamulka Soomaalida Ogaadeniya sanadkii 1948. waxbarashadiisa waxa uu ku soo kala qaatay dalalka Soomaaliya, Kenya iyo qaar ka mid ah wadamada reer Yurub. Cabdullaahi waxa uu soo qabtay jagooyin kala duwan sida wakiilka jabhadda gobolka Soomaali Galbeed oo in ka badan 9 sano uu fadhiyay wadamada khaliijka. Cabdullaahi waxa uu ku nool yahay dalka Ingiriiska oo hadda ka sameeya cilmi baaris ku wajahan taariikhda iyo siyaasadda geeska Afrika. barnaamijkeenan oo dhinacyo fara badan taaban doona ayaa su'aashayda ugu horeysan Cabdullaahi weydiinaya waxa ay tahay Cabdullaahi waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Soomaalida Ogaadeniya ee muddada faraha badan kusoo dhex jira siyaasadda ummadda. haddana weli waxaad raadisaa in badan oo taariikhda iyo siyaasadda geeska Afrika. adduunkana waxaa ka bilaabatay siyaasad cusub oo wadamada reer galbeedka ay hogaaminayaan taas oo ay ku ilaashanayaan danahooda. siyaasaddaasna hadda wayba saameysay geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. marka saameyntaas gaadhay hadda Soomaaliya ama geeska Afrika intee ayay la eg tahay? bismillaahi raxmaani raxiim. waa arrin mug weyn weeye su-aashan aad weydiisay. waa su-aal ballaaran laakiin haddaan si gaaban uga jawaabo waxa weeye geeska Afrika iyo adduunka maanta adduunka waxaad moodaa in uu hore adduunka isu dheelitirnaa dagaalkii mataqaanaa qawwa markuu jiray, laakiin hadda waxaad moodaa adduunka inuu hal meel iskugu wareegay. halkaa meelna ay tahay dowladaha reer galbeedka siiba dowladda Mareykanka. maantana arrimaha jira ee dhacaya ilaa isbedelkii aan dhahno saad sheegtayba waqtigii inta 2011 September waxyaabaha dhacay adduunka isbedel badan iyo saameyn badan buu ku sameeyay. geeska Afrika waxaa ayadana saas oo kale saameyntaas way soo gaartay. waxaana ka socda dhibaatooyin fara badan geeska Afrika maanta. waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliyeed jirtay ilaa 16 sano dagaal ku jirtay dhibaato badan soo martay in ay hadda ku jirto dagaal kale oo hor leh inuu ka bilowday kaas oo ah dowladda Itoobiya oo soo gashay dalkii. soo galistaas ma aha iskama ay soo galeen dowladda Itoobiya laakiin waa istaraatiijiyad jirta. istaraatiijiyadaas ale waxaan qabaa ay ku soo gashay Itoobiya waa mid ka dambeeyaan dowladaha reer galbeedka ay ka dambeeyaan. sida ku xusan taariikhda geeska Afrika waxaa jiray khilaafaad soo jireena oo u dhaxeeyay qowmiyadaha degan geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida iyo kuwa ku abtirsada Abasiiniya. wuxuuna soo bilaabmay qarniyo hore. marka siyaasadii hore ee ahayd isriixa iyo dhul kala qabsiga iyo isgumaysiga mid ka bedelan miya tan hadda socota mise iyadii bay sal ku leedahay? aniga waxay ila tahay way ka bedelan tahay. waxay uga bedelan tahayna waa arrin aad moodid in dagaal hor leh iyo mataqaanaa dhibaato hor leh in ay meesha ka socoto. sababtoo ah shalay waa loo helinayay Itoobiya qarnigii 19aad qarnigii 20aad ayadaa la garab taagnaa.
qowmiyadda Soomaalida ee gobolka Soomaalidana wuxuu ku jiray Ethiopia gacanteeda taasna waxay ahayd mid ayaga loogu heliyo arrintaasiito oo ogtahay dagaalo badan baa dhaxmaray jabhadihii ka aloosmay gobolkaas iyo dagaaladii dhacay ee jamhuuriyadda Soomaaliya kii 64kii iyo kii muxuu ahaa 77 haddaad ka soo tagtid dagaalaas waxaan halkan kastoo Ethiopia la jiray laakiin si cad maryaha looma dhigan laakiin maanta waxaad moodaa in Ethiopia si cad loo yiri warqad check mataqaanaa cad la siiyo la soco waxa sameeyay waxaad u aragtaa in dagaalkan Ethiopia ay ku soo qaaday Soomaaliya uu yahay mid dan u ah wadamada reer galbeedka of course saasan u arkaa waayo haddayna u ahayn reer galbeedka beeshan reer galbeedka doonaynin iyo waxa la doonaynin isla markaas wax laga qabta maxay noqon kartaa sababtaas maxaa keenay maadaama reer galbeedku ay doonayaan inay kaalmeeyaan sida ay sheegtaan iyagu amaba ay had iyo goor sheegaan dunida saddexaad ee horumarka la hormarinayo waxay jecel yihiin sida in badan ay sheegaan inay hormariyaan oo ay la shaqeynayaan marka maxaa keenay in Ethiopia iyo Soomaaliya reer galbeedka ay kala doortaan sababtu maxay tahay waxay u kala dooranayaan Ethiopia waa qarnigii 13 laga soo bilaabo waa Portuguese dawladihii Yurub ay soo jiray Ingiriis Faransiis Talyan kullu mid walba garab way ku siinay sababaha ay ku siinayaan waa sabab cad way waayo waxay u arkaan waxa jirta arrin la yiraahdo oo cad oo taariikhda ku jirta oo ah Ethiopia waxay ku dhex jirtaa jasiiro muslim ay ku dhex jirtaa waa wax la qoran anaka ma qorin marka kan waa siraac diini waa siraac wadhici kara siraac diini oo jira waayo hadda siraac diini waa socdaa meelo badan buu ka socdaa laakiin waxaan dhihi karnaa hadda arrinta uma arko ani uma dhahayo waxay u socotaa diin laakiin waxay u socotaa shidaal wax la yiraahdo dagaalka shidaalka meeshan waxaa adduunkii soo baxay dawlado cusub oo waaweyn oo China ka mid tahay India iyo dawlado kale Malaysia dawlado badan oo maanta u baahan shidaalkii in ay qayb ka qaataan adduunka taa waxay keentay marka shidaalkii meelihii ay ku jireen Soomaaliya gobolka Ogaadeen Soomaaliya wuu ku jiraa shidaal uu ka buuxaa wayna og yihiin 44kii dagaalkii koowaad waxaan leeyahay dagaalkii labaad Talyaaniga markuu joogay dhulkaas gobolka Ogaadeen uu haystay wuxuu cadeeyay in uu ka baaray petrol oo cadeeyay Talyaaniga in uu petrol ku jiro gobolkaas 44kii Singaleer ayaa timid oo qabsatay muxuu ahaa Singaleer shirkad la yiraahdo Mareykan oo dawladda Mareykanka ay daba joogto ayaa waxay sameeyeen arrin muxuu ahaa qarsoon negotiation qarsoon wada hadal qarsoon ayaga Ethiopia macaahado qarsoon isla sameysteen si dhulka gaaska ku yeeber ku jira shirkadaas u soo saarto oo u bacigeyso hadii la helo taas waxay ka careysiisay dawladda Ingiriiska markaa gobolka haysatay kasakow galitaanka ay soo Ethiopia gashay Soomaaliya waxaa jira khilaaf weli taagan oo u dhaxeeya Ethiopia iyo Eritrea khilaafkaas wuxuu ku salaysan yahay mid dhulba isku haystaan Eritrea iyo Ethiopia dagaal lagu hoobtayna waa kii hore ay dhacay marka galitaanka Soomaaliya ay gashay Ethiopia saameyn ma ku yeelan doonaa khilaafkii Eritrea iyo u dhaxeeyay Ethiopia waxaad goor ku eedaysaa Eritrea inay taageerayso maxkamadii Islaamiga ee Soomaaliya nabad ku soo celiyay ay Ethiopian ku weerar ku soo qaadanay ka saarin meesha Eritrea waxay Ethiopia ku eedaynaysaa in maaragtay Ethiopian ku ay doonayaan inay mandaqada oo dhan xukumaan marka ma laga yaabaa galitaanka Soomaaliya ay Ethiopian ku soo galeen inay saameyn ku noqoto dagaal Eritrea iyo Ethiopia u dhaxay inay soo dedejiso arrintan Eritrea waa jirta Soomaaliya ama gobolka Ogaadeen Soomaaliya galbeed Ethiopia ayaa haysata oo ah dawladii mataqaanaa muxuu ahaa gacanta ku haysay gobolkaas inkastoo hadda la sameeyay ay sameeyeen ku dhawaaq oo yiraahdeen waxaan sameeynay dawlad oo aniga wali madax ka ahaa dawladdaas tii oo asaasto saas sheegtay laakiin habka Ethiopia u dhaqmayso ma aha hab qowmiyaadka aan ahayn ama xaalada ama Tigreega aan ahayn in ay xuquuq sida siman ay leeyihiin sida muxuu sida ku Ethiopia halka waxaa ka muuqda marka dawladda Ethiopia gobolka maadaama la isku haystay shacabkii lahaana oo dagaal ku jiro حق أودونين أي تاي حق تقدر مسيركيسي تا أيا كنتي مركا إثيوبيا إن أي جبي أهم أقبشوا جالسة الصومالية أي كشيء ويا نفوذ كاس سياسات أو الصومالية كتكتي وحي كنتي إن كل صومالي هو جمهورية الناس يقبل كاس أي ما تعيره galitaanka Soomaaliya ee gashay sabab ma u noqon karaa su'aashii man markale ku celinaya sabab ma u noqon karaa dagaal ka qarxa mandiqada oo idil tusaale ahaan miyuu toosin karaa qowmiyadihii kale ee islaamka ee ku hoos jiray Ethioopiyaanka ama qowmiyadihii kale islaamka ahayn ee ay
Ethiopia xukuntay ee la muqooniyay mase sababi karaa dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia oo dib u soo baxa Eritrea iyo Ethiopia waxaa u dhaxeeya waxaa la isku hayaa deegaamo la isku hayaa xuduud baa la isku hayaa dhul baa la isku hayaa dhulkaasna waxa ilaa maxkamadda caalamiga ay tagtay Eritrea waa la xukumay Ethiopia way aqbashay laakiin ilaa hadda arrinta ma dhamaanin labada dawladood waa suuroobi kartaa sida hadda muuqata in uu tensionka kacsan yahay Ethiopia ay ku eedeynayso ay leedahay maxaakiimtii iyo muxuu ahaa ururada ayada ka soo horjeeda ayaa waxay joogaan muxuu ahaa Eritrea xaq bay u leedahay ninka ayada ayadayso iyo ninka ayadeenin ta waa Eritrea siyaasadeeda weey Ethiopia marka ana waxa leeyahay waxa weey shucuubta Ethiopia ku nool way dhici kartaa maadaama Ethiopia isballaarisay hadda dawlad kasto isballaariso oo meel kale dagaal ama dawlad kale dagaal ku qaada sida caalamka taariikhda aan ka akhrisaneen oo isballaariso waxa ku dhici kara in ay dhacdo gudaheeda in ay isfurfuraan Ethiopia waa ogtahay mucaarada badan baa jooga dalka gudihiisa ama ahsaaba ama wuxuu ahaa dagaal ka wada sidaa darteed way dhici kartaa in ay siiso ta'athir ku yeeshaan arrimahan kala geeska Afrika ka socday isballaarigan Ethiopia isballaarisay inay ta'athir ku yeelato Ethiopia gudaheeda inta in leeg ayaad u malaynaysaa ciidamada Ethiopiaanka ee galay Soomaaliya inay joogi karaan mase u malaynaysaa inay ka bixi doonaan taa waxay ku xiran tahay aniga waxa qabaa taa waxay ku xiran tahay shacabka Soomaaliyeed sidoo asaga isu abaabulo laakiin sida hadda ay muuqato aniga shacabka Soomaaliyeed uma arko in uu abaabulan yahay si qowmiyadeed waxa ay muuqata qaar waa jiraan ururka muxuu ahaa maxaakiimtii iyo ururo kale oo jira way jiraan laakiin shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa waxaan leeyahay aniga sida ay muuqata in uu u qeybsan yahay habka maxaad ku tilmaami lahayd soo galitaanka Ethiopiaanka ay soo galeen gudaha ma gardara mise sida ay ku andacoonayaan dawladda ku meel gaarka ah waa kaalmo ay Ethiopiaanku u fidiyeen dawladda Soomaaliya si nabad loo soo celiyo saad u aragtaa adiga aniga uma arko kaalmo waayo oo eeyada hadii si rasmi ah ay u soo gali lahaayeen dawladda muxuu eeyada ay u soo gali lahayd dawladda Afrikaanka oo ay nabad raadin lahaayeen oo shacabka Soomaaliya wada hadalkiisa iyo shirarkiisa si nabadgelyo loo qaban lahaa taa waxay ahaan lahayd legitimacy bay yeelan lahayd oo si sharci ah bay yeelan lahayd laakiin hadda ma yeelan waa Ethiopia soo gashay dalkii si ay rabtay u maamulaysa أنا سيدي مقتوي لأنه مركان مقاشيد وحكستون واحد مقلس وحاب ما تيمد سيركو يمد وزير خارجية توبيا إن شاء الله واحد برايم مينستر كي يا سيركو يمد دول كله بالله خيره ما يا حكومة Soomaaliya حكومة Ethiopia حكومة مركز تان waxay keenaysaa waxa weeye sovereignty laakiin kuwii xukumay baa u yeedhay oo waxay yiraahdeen noo u yeertaan aniga hatta haday u yeertaan waxaan u arkaa sidii la rabay ama sida haday kuwan hatta u baahnaa inaan ahayn in shacabka Soomaaliya dhigiisa la daadsho oo shacab Soomaali ah oo dalkiisa jooga in la laayo ama la xirxiro taa waxa weeye kartaro ama dhul balaasi Ethiopia siyaasadeeda waa loo arki karaa inay tahay dhul balaasi iyo siyaasadii ay kuma xaabihii ay ku mutaqana ku fikri jirtay inay maanta dhex taagan tahay ilaa wuxuu ahaa dalka Soomaaliya oo ay maanta joogto ka gobolka Soomaalida ee waxa ogaadeen ayada gacanta ku haysa maanta ma la dhihi karaa Ethiopia ama meel sanaawi taliska Addis Ababa wuxuu doonayaa inuu dib u soo celiyo Aksumite ama imbradooriyadii Abyssinia waxa weeye horta qowmiyadda Ethiopia marka la yiraahdo Abyssinia waxa ka kooban tahay Amhara iyo Tigray ka kooban tahay labada qowmiyadood horta labada qowmiyadood Ethiopia isu bedela oo haysta Tigrayga waxa qowmiyadii u horeysay ee markii hore Aksum xoog ku leh wala burburiyo waxa burburiyo monarch burburiyo oo ka qabsaday boqol sano iyo qarni bay haysteen Ahmarada maanta waxa haysta meel wuxuu ahaa malas waxaad arkaysaa meelaha qaar markaad raacdeed website-dooda in la leeyahay wuxuu soo celiyay malas arrimihii boqolaalada sano qarniga la qaban kari waayay in Soomaaliya gacanta lagu qabto ama badaheeda la tago iyo soo celiyay taa waxa marka in ay uu rabo powerkii Aksum ahaa Tigray in magacii Tigray uu shalay ku lahaa Ethiopia Ahmara ku lahaa Abyssinia inuu soo ceshto oo soo ceshto laakiin taas hadda tu dhici karto ma yahay dadkii waxbay barteen horumar baa la sameeyay marka ra'yigaas ma noqon karaa ra'yi macnaheedu ra'yi dhici karma say ku dhici kartaa dad saa u aragto waxay ku dhici kartaa haddaba way dhacday tan dawladda way dhacdo Ethiopia maanta waxay taagan tahay xeebihi Soomaaliyeed tan dawladda baa u yeeratay okay ha u yeerato laakiin aniga waxaan leeyahay waxa weeye maanta siday u dhacday ayay maanta bari u dhawaay garab haysataa shacabka Soomaalida meel kasta joogana ma laha midnimo wuxuu shacabka Soomaaliya wuxuu u qaybsan yahay qabaayil buu qaybsan yahay
kan jamhuuriyadda Soomaaliya sheegaya qabaayil buu qabsaday waxaad arkaysaa shacabkii Soomaalida madaxdii shalayto dalka Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya u talisay in loo yeeray gacanta loogu yeerayo ayagoo qabiil ah Ethiopia la shirayaan adiga ururka ONLF asaasayaashiidu ka mid tahay welina ra'yi ahaan waad aaminsan tahay waxaana dhacday xilligii dawladii Siyaad Barre iyo tiimigista ay dhisnaayeen in adiga dhibaatooyin lagu geystay ururka daraadiis oo baasaboorkaaga xataa laga qaado Kuwait jooga waxyaabo kale oo ku dhaceen welina ururka ONLF wuxuu dagaal kula jiraa dawladda Ethiopia isagoo dagaal hubeysan waliba ku qaaday inay iska dhaaf ururadii dagaalamay Ethiopia waxay qabsatay Soomaali weyn marka sabab isu qaban kartaa in urur yar oo ka dagaalamay gudaha Ogaadeniya ama dalka Ogaadeniya Ethiopia haysato sidee bay ugu suuragelaysaa inuu la dagaalamo dawladdaas Soomaali weyntii qabsatay arrintaas way dhacday waa laga qaaday passport dawladda Soomaalida siyaasadda ururka way ka soo horjeeday waayo ayada waxay aysaneed ururkii Soomaali galbeedna ururkii ma hadda waxaan ka wadaa hadda say ugu suuragelaysaa Ethiopia waxay ugu suuragelaysaa nidaamka maanta socda ayay ugu suuragelaysaa shalayta nidaamka jiray wuxuu ahaa dagaalka qababaa jiray dagaalka qababaa oo laba dawladood oo super power ah oo intaasoo dawladood mid walba ku xiran tahay ayaa mid mar walba markii danta aad leedahay kii markaa ku garabsiinaya aad ku raacaysay hada super powerkii mid koob laakiin maanta super powerkii ma jiro hal meel baa super powerkiina wuxuu gacan siinayaa Ethiopia marka oo nafsay u suuragelaysaa marka ONLF aniga waxaan qabaa waxa weeye siyaasadda geeska Afrika maalin dhaweed waan sheegay shir lagu qabtay Stockholm baa ku sheegay waxa weeye aniga waxay la tahay ONLF in ay dib isku noqoto wadciga iyo duruufaha siyaasadeed ee jiraan ay dib ugu noqoto baarto fahantana sida wax u jiraan siyaasad la socon kara waqtigan ee hab mutaqana aan kula socon karno inuu ahaan kii shalay 110 sano 20 sano jiray ma aha maanta ana waxaan qabaa in dib loo habeeyo waayo Ethiopia maanta ciidankeedii iyo saaxiibo badan bay ka kasabtay Soomaaliya dhexdeeda marka sidaa darteed ONLF waxay u baahan tahay inay dib isugu noqoto oo dib isu soo habeeso oo dib isu dhisto shacabkana la baraarujiyo muxuu ahaa arrimahan socda laga qaato muxuu ahaa mithaal sida ugu haboon ee ummadda ay ku nabadgeli karto ay ku gaari karto muxuu ahaa xuquuqdeeda adigu waxaad ka mid ahayd aasasayaashii ururka ONLF gaar ahaan kuwii dhowrkii qof ee ugu horreysay ee ra'yiga keentay baad ka mid ahayd ururkiina wuxuu gaaray marxalado badan buu kasoo gudbay wuxuu soo galay dagaalo waxaad mar qabsateen maamulka gobolka oo adiga aad ka noqotay madaxweyne haddana waad ka baxdeen oo bannaankaad uga soo baxdeen marka ujeedadii loo aasaasay ururkan maxay ahayd maxaase keenay inaad marna dawladdii Ethiopia Meles Zenawi hogaaminaya aad heshiis la gashaan oo dawlad aasaastaan marna aad la dagaalantaan maxaa keenay sababtaas isbedelkii ka dhacay adduunka siiba geeska Afrika 1990kii wuxuu ahaa marxalad cusub oo timid oo ah dagaalkii qababa oo dhamaaday saad ogsoon tahay dawladda Soomaaliya ee Itixaadka Soviyeeti way burburtay waana la kala baxay qowmiyaadkii ay ayada ku hoos jireen way xoroobeen waxaa kamid ah Yugoslavia oo ayadana sidaas oo kale u dhacday waxaa kamid ah Czechoslovakia inay kala baxeen ummad walbana xuquuqdeedii iyo xaqeeda ay qaadatay taasaa waxay keentay marka nimankan cusub ee qabsaday isku magacaabay ururka Umbrella EPRDF laakiin TPLF ee Tigreega waxay cadeeyeen adduunka tuseen in ay bedelayaan fikirkii ahaa dawladdii hore ee Mengistu iyo Haile Selassie ay ku socon jireen inay bedelayaan oo ay keenayaan fikir ah muxuu ahaa shacabka Ethiopia shucuubta Ethiopia dhibaatada soo martay ama gumayska soo martay in ay siinayaan xuquuqdooda ay ka talinayaan waad la shaqayseen madaxweynaad u noqotay kililka ismaamulka Soomaaliyeed madaxweynaad u noqotay waad la shaqayseen Eritrea waa la siiyay xornimadeeda idinka maxaa la idin siin waa xornimada Eritrea labadan urur way soo wada shaqeeyeen laakiin idinka maxaa la idin siin anaga waxa loo sii waayay hadda Eritrea garab bay heshay wayna soo dagaalantay dagaalkeedina way ku faa'iistay idinka waa dagaalantay way soo dagaalanay laakiin way ku faa'iistay dagaalkeedii waxayna ayadana wax la qabatay ururkan TPLF ee Ethiopia ka soo horjeeday ayaa wax la qabatay marka sidaa darteed labadii urur waxay isla dhigteen mucaahado ah kana in wax la qabto kana uu xornimada ogolaado anaga nimankan wax ma aan wada dhigan markaa ururkaayagana wuxuu ahaa urur markaas cusub oo banaanka lagu aasaasay oo gudaha xoog badan ku lahayn buu ahaa ururka wuxuu ahaa urur markii horena dawladda Soomaalida ee Maxamed Siyaad Barre ayna ogoleen
la dagaalamaysay oo mataqaana baasboor naga qaadatay oo aan urur intuu isu yimid shirweynihiisii uusan dhicin asagoon kobcin oo siyaas ahaan u kobcin baa isbeddelkan yimid isbeddelkan markuu yimid markaan aragnay xaaladda sida ay tahay iyo dhibaatada taalla waxaan bidnay dalka ummadayada in aan bal arrintan taato adduunkana tusno Ethiopia waxa ay wadana inay tahay mid run ah iyo mid mataqaana xaqiiqda ka fog in aan ogolaano qawaaniinta iyo sharciga ay dhigatay ayada taasaan ogolaanay taasaan marka dawladdu ku dhisnay dawladdu marka dhisteen ood ka mid noqoteen waa la hadasheen iyaga waa la fadhiisteen dabcan waa la hadlay anaa madaxweynaha waa ka wada hadlay maxaad u weydiin weydeen ayad ka talinta waa qoreed waa qoraal jira oo ayad ka talinta maxay marka idin siin waxa ahayd anaga 2 sano oo kumeel gaar ah jiray marka maxaa la idin siin waayay waxaa jiray 2 sano oo kumeel gaar ah oo ah muxuu ahaa dastuurka intaan la sameeyay waxaa jiray muxuu ahaa dastuurka intaan la sameeyay waxaa jiray muxuu ahaa qawaaniin udhaxaysa 2 sano lagu gaarayo kumeel gaar dawlad kumeel gaar ay ahaayeen marka waxa qaanuunka ku qornaa in ummad kasta ay xaq u leedahay ay ka talinteeda ilaa ay go'i karto markii dastuurka la sameeyay waa baarlamaanka ummadda wuxuu xaq u leeyahay in uu go'aamiyo ummadaas hadduu isku raaco ama uu dareemo dhibaato inuu go'i karo taas ururkii wuu sameeyey baarlamaankina waa sameeyey laakiin taa Ethiopia ma aqbalin waxa ay ku bedeshay xirxire iyo dadka in la xirxiro dadka inuu kala tago ummadii mataqaana iyada ballankii ka baxday ayadaa ka baxday laakiin sabab badan oo kale way haddaan dib ugu laabano aasaaskii ururka waxaad ahaydeen ilaa 6 qof ujeeddaad u aasaasteen xaggee lagu aasaasay ururka iyaysa ahaayeen 6 qof ee aasaastay ujeedadiisiina maxay ahayd aasaasku ahayd ururka ujeedadiisu waxay ahayd in ummadaaseeto dhibka haya laga bixiyo ururkii ka horeeyay oo isbedel badan ku yimid oo jamhuuriyadda Soomaalida dhibaatooyin ayaga dhaxdooda halkaas ku celi waxa tir ururka waxa loo aasaasay inuu dadka dhibaatada ka bixiyo laakiin dhibaato uu keenay sida ay dad badan qabaan oo dagaalo iyo barakac waxyaabo fara badan buu dadka tirsanaya waxaana inta badan farta lagu godayaa madaxda iyo siyaasiyiinta ururka markii aan sameeynay wuxuu lahaa barnaamijyo kala gedisan barnaamij fog oo istiraatiiji iyo barnaamij taktiik ah ururka asagoon saldhiganin oo aan mataqaana kaadirkiisii iyo mataqaana bulshadii isu keenin ayaa waxaa dhacay isaan kuu sheegay wuxuu ahaa isbedelka ka yimid geeska Afrika iyo Ethiopia isbedelkaas marka wuxuu keenay inaan ka qayb galno annagoon diyaar noqonin oo diyaar garoobin weli wixii ayaa dawladnimadii timid gobolkii dawladdiisii baan ku mashquulnay inaan dhisno taasoo ahayd midda loogu weyn in aan kala soo wareegno Ethiopia wuxuu ahaa sharci ahaan gobolkaas inuu yahay gobol iskiis u taagan laakiin idinkoon bilaabaninba ama aan imaaninba gudaha dalka oo dibadda ku maqan ayaa waxaa dhacday inaad idinka laftirkiin is-inqilaabteen oo Qobrus lagu sameeyay urur iyo gudoomiye amaba ururkii madaxdiisa lagu bedelay oo gudoomiye la sameeyay oo Maxamed Ismaaciil uu ka noqday gudoomiye khilaafaadka noocaas iyo wada tashi la'aanta ururka soo dhibaato weyn kuma hayso of course urur kasta horta ummad kasta oo samaysa wuxuu ahaa arrin ku saabsan horumar ummadeed ama xorriyadoon dhibaato waa imanaysaa laakiin arrintan aad sheegtay ee ah in ay dhacday Qobrus waa jirta waa dhacday ururka markii la maqlay in uu jiro ururka wuxuu ka socday wuxuu ahaa howlihiisa waxay ka socdeen Kuwait oo ahayd dalka carabta ama khaliijka ama carab waa dhamma sharqi awsad oo dhanba dhulka wadanka ugu firfircoona xagga uu ahaa warbaahinta oo xor ah oo ay bedeshay markaa Lebanon oo ahayd warbaahinta ku fiicneed oo xor u ahayd Lebanon dagaal ahli ah ka dhacay sidaa darteed markaa dadku waxay u soo wada guureen nimankii muxuu ahaa warayeelkii oo dhan waxay yimaadeen meesha la yiraahdo Kuwait halka marka waxaa formay saxaafo xora ayaa dalka Kuwait marka ururka waxaa halka uu ka helay saxaafadaas wuxuu ka helay warbaahin uu ku baahiyo dowladooyinkiisa iyo siyaasadiisa sidaa ay tahay marka dawladda Soomaalida markay aragtay warbaahinta waxa ka socda iyo ururka meesha uu ka socdo saldhigga oo ah Kuwait waxay bilowday in ay baasaboorka naga qaado in ay muxuu ahaa tiraahdo ku soo noqdo Soomaaliya taa waxay keentay marka in markay saa u dhacday ninkan aad saaxiibkay Maxamed Ismaaciil wuxuu joogay Algeria
algeria markuu ka imanayo suuriya imanaya aniga asaga wada tashi baan lahayn inuu imaan anoo markaa kasoo noqday ciraaq intaan taagay kasoo noqday baasaboorka laga qaaday suuriya inaan isku nimaanan doonay baasaboorka baa laga qaaday markaas waxaan niri adiga imow suuriya oo la kulan dowladda suuriya arrimo jiray markaa waxaa dhacday arrin aan markaa asaga lala ogeyn oo madaxdii urarka aasaastay eena la ogeyn ayuu keligiis qaatay keligood bay ahayn miyaa dhalinyarada keligiis baa qaatay dhalinyarada iska dhaaf keligiis baa qaatay dhalinyarada waxay joogeen suuriya joogeen dhalinyarada waxay u qaybsaneen laba qaybood bay qaybna WSF bay u joogtay oo lagu keenay scholarship qaybna ONLF marka ONLF ah laakiin markii isaga guddoomiyenimada uu halkaa loogu magacaabay waad ogolaateen ma la ogolaanin laakiinse meesha waxay noqotay duruuf maxaa ismaaciil warqad baan u diray oo yiri maxamed ismaaciil oo arrintan maxaad ku samaysay sababtay ku dhacday maxay tahay ilaan dastuur baa loo yaalay waxaa loo yaalay la daakhiliyaad jirtay oo muxuu ahaa la isku muxuu ahaa howlaha mataqaana u kala qaybinaysa madaxdii urarka ayadoo la gaarin shirweyne waxaa keenay inaad adiga bad wuxuu maxamed ku jawaabay jawaabtiisii warqadiisii baan hayaa wuxuu ku jawaabay adigana waxaa laga qaatay baasaboorkii nimanka kalena xamar bay joogaan marka itisaal ma lihin marka jabhaddii si aan anaga u socodsiino ayaan aniga u qaatay ra'yi fiican soo maahayn markaas maadaama adiga baasaboorka laga qaatay nimanka kalena gudaha ay ku jiraan ay soo bixi karin haddii uu tallaabadaas qaatay oo yiri okay ururkii baan badbaadinayaa waa inaan ra'yi fiican soo maahayn waya dastuurka marka wax khayr muxuu ahaa arrin aan dastuuri ahayn oo qaanuun ahayn haddii wax lagu sameeyo weligii alli haddaad geed abuurtid oo geedkaasi geedkaad aad abuurtay hadduusan toosin oo qaloocan buu ku soconaya marka ONLF waxyaabaha aniga aan leeyahay waxbaa ku jira oo weli la saxiin hadda aan la waxaad leedahay qalooc wuxuu ka soo bilowday markaas soo bilowday